habeenimo ayaan ku sugannahay suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa gudaheeda waxa taagan dhalinyaro fara badan oo 18 May doonaya inay ku xusaan waxay muujinaysaa sida dhalinyaradani saacada kowda ka dambaysa ay u muujinayaan inay maanta dareenkooda ku muujiyaan goobo badan oo caasimadda Hargeysa ayaa xilligan oo kala barkii habeenimo ay dhaaftay ay taagan yihiin si ay u muujiyaan waxaan ku eegi doonaa barnaamijyadan qaybo ka mid ah si aan u ogaano si dhalinyarada Soomaaliland iyagoo isku abaabulay calanka Soomaaliland sitara ay ugu soo bandhigayaan goobo kala duwan oo ay ku muujinayaan shucuurtooda gaadiidka ayaa ilaa saqda dhexe caawa shaqaynaya iyagoo oo dabcan ay dhalinyartaasi baabuur fara badan ay wataan oo ay doonayaan inay goobaha ku kala maraan markaasi ay isaga kala gooshayaan waxaana hadda aan ku sugannahay bartamaha magaalada Hargeysa qaybo ka mid ah oo dhalinyaradaasi dabcan ay doonayaan inay shucuurtooda ku soo muujiyaan kuna soo bandhigaan maanta xuskooda waxa ay ka mid yihiin inay tusaan in qarannimada Soomaaliland ay tahay mid aan dhawaaq iyo suuragal lagu sameeyay taas oo macquul ka dhigaysa inay ku soo bandhigaan shucuurtooda iyo dareenkooda si toos ah ayaan ugu sugannahay hadda oo markaas saacadii kowdii habeenimo kor u dhaaftay gudaha magaalada Hargeysa oo goobo kala duwan dhalinyaradaasi ay ku soo bandhigayaan maanta shucuurtooda waxa ay muujinayaan oo gaadiid fara badan ay adeegsanayaan lug iyo gacanba goobo fara badan oo magaalooyinka ka midana ay isugu soo baxayaan waxaana telefishinka qaranka Soomaaliland uu idin soo gudbinayaan barnaamijyo oo idinku tusayo saacadda ay taagan yihiin dhalinyarada reer Soomaaliland goob kasta iyo meel kasta ayay taagan yihiin si ay u muujiyaan maalinta berrito ay 18 May ku dhowdahay inay habeenkaasi ku soo bandhigaan farxadooda iyagoo meelo fara badan oo ka mid ah caasimadda Hargeysa ay taagan yihiin magacaaga ugu horeeya walaal magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cismaan Liibaan oo ku magac dheer Maxamed Cismaan Liibaan xilligan maxaa ku soo jeediyay maxaa hawlaha qabanaysa waxa soo jeediyay waa habeen farxadaysan waa habeen dalku intan uu jiro aanu jirinba intan imika aan ku arkayo waa habeen qurux badan waa habeen qaaliya waxaan ku xusayaa habeenka oo ku xusayaa waa habeenkii la aasaasay dawladdeena Soomaaliland in maanta taagan hadda dhalinyarada aan dhalanin xilligaasi hareeraha taagan oo badan dhalinyartii 2000 wixii ka dambeeyay waxaan leeyahay dhalinyartii 2001 wixii ka dambeeyay waxaan leeyahay idinka riyaydin la tay anigu marka allaaliyo markaan maqlo 18 May baan ooyaa oo aad iyo aad faalana waan ka bixin karaa waqtiga hadda ayaa xilliga intanoo kale ma jirinba aan maanta arkay waan ku faraxsanay horumarku wadanku gaaray waana mid aan ku mahadnaqayno xagga Ilaahay nooga timid waxaan ku sugannahay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaan u dabaaldegaynaa xuska 18 May maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteen waxaan isku soo baxnay halkan inaan u dabaaldegno xuskaas waxaan leenahay qulaasho ku quuso farmaajo waxaan ku leenahay ku quuso saaxiib Soomaaliland way socdaashay way dabaaldegaysaa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay happy ID May caawa aad iyo aad ayaan idin salaamayaa shucuurteedu way kacsan tahay waan faraxsanahay waadna aragtaan saan u dabaaldegayno saan u ciyaarayno inaanu calankayga kobcinayno kor u qaadayno waxaan leenahay waanu ka baxnay buluugii ka baxnay caawaanu faraxsanahay ma sha Allah waanu dabaaldegaynaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay waxa isku soo hagaagay ciidii iyo ID May-gii iyo doorashadii waxaan ilaaday garanayo caawa seexanba maayaano magacaygu waa haweeney Ismaaciil Muuse caawa farxadayda lama koobi karo waxaan u dabaaldegaynaa ID May maalintii xorriyadda aanu ka qaadanay gumaystii Siyaad Barre iyo Soomaaliya aanu kala goonay caawa weeyaan caawa waxaan ka baqayaaba inaan farxad darteed dhinto malaakowdii habeenimay ku dhowday farxad baan la seexan waayay marka Ilaahay waxaan ka baryayaa dalkayaga iyo dadkayaga in Ilaahay isjeclaysiiyo calankayagana tawxiidka ku qoran waanu harsanaynaa ma sha Allah xilliga waxaan ugu daashanayaa waa nabadgelyo anigu nabadgelyo ku seexdaa nabadgelyo ku gamaa nabadgelyo businesskayga ku shaqaystaa marka waxaan leeyahay hooyo ciid mubaarak sanadkiisa hambalyo Soomaaliland dal iyo dabadba kaasa inoo hurtin aan
kaasaa ballan inoo ah وهاجاك داوديال وليد دبالدق لو دبالدق يسد دنغورده ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay xornimada dib u soo noqotay sanadii 1991 oo 30 sano kadib ay magaalada Hargeysa caawa si aad markaas u abaabulayso saacad oo ku dhow labadii habeenimo dabcan wali waa ay socdaan dabaaldegyada ay markaas dhalinyaradu soo bandhigayso iyadoo gaadiidka kala duwan caawa ay jaamiyeen gudaha magaalada markaas Hargeysa oo xilligan iyo waqtiyadan ay ahaayeen waqtiyadii dadku ay hurdeen laakiin caawa aad moodid inay tahay xilliyo ay waagu bariyay labada habeenimo waxa ay banaadagaasi sii soconayaan oo dabcan markaas ay yihiin qaar sii soconaya telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa idin soo gudbin doona muuqaalo ugu talagalay sida ay markaas dhalinyaradaasi ugu soo bandhigayaan dabaaldega 18 May oo ilaa caawa aan loo kala seexanin saacaduna waxay ku dhawday labadii habeenimo aad ayaan ugu mahad celinayaa daawadayaasha idinkuna xilligan nala socda iyo waliba ka qayb qaatayaasha ilaa xilligan sii jooda waxaan aad ugu mahad celinayaa Axmed Jaamac oo dhinaca kamarada ah iyo Cabdicasiis Mursal oo labadooduba ka qayb qaadanay barnaamijkan inta aan barnaamijkan oo kala isugu iman doono oo intiina sii seexanaysaana ay seexan doonto inta kalena ay daawan doonto waa telefishinka qaranka Soomaaliland Asmaan bartamaha magaalada Hargeysa